بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. habeen wanaagsan. Caawa waxaan doobaynaa casharkanaga shanaad. Waxaan ku baranaynaa casharkan shanaad dhowr qodob oo ku saabsan qoraalka. Waxayna kala yihiin qodobka u horeeya the insert point to add text oo cursor loo yaqaano space bar, new paragraph line iyo manual placement, select text iyo haddii Ilaahay kuu roon yahay delay text. Lixdaas qodob aan ku baranaynaa. Haddii marka kan u horeeyo aan ka bilowno the insert point to add text. Insert point sidiisaba waxaa weeye waa cursor. Cursorna waxaa la dhahaa iligaa yarkee boodbooda marka qoraalka la qorayo, wuxuuna kuu tilmaamayaa halka qoraalkaada aad ka bilaabaysid. Wuxuu ku tusayaa halka aad qoraalkaad tusaale ahaan halkan oo kaleeto enter haddaad dhahday, cursor waxaa la dhahaa fartaa yarta ama lugtaa yarta taagan ee boodboodaysa ayaa cursor la dhahaa. Wuxuuna ku tusayaa halka qoraalkaada ka bilaaban doono. Tusaale ahaan hadda haddaan qoro dugsiga waxaan aadaa dugsiga, waxaa arkaysaa in qoraalkaada uu hor socdo. Waxaan aadaa dugsiga. Mar walba qoraalka halka uu asaga hadda ka boodboodayo ayuu kasii bilaabanayaa. Marka waxaa la dhahaa cursor ayaa la dhahaa. Haddaad enter tirahdid paragraph cusub uu aadayaa, waana ka cursorka uu taagan yahay. Waxaan ahay arday. Cursorkii wuu hor socdaa. Cursorkaas marka wuxuu tilmaamaa halka qoraalkaada uu ku qormayo ama qoraalka halka uu ka bilaabanayo ayuu tilmaamaa. Haddii aan aadno qodobka labaad, space ayaa la dhahaa, space bar. Space barkaas waxaa waaye marka aad qoraal qorayso oo kaleeto. Tusaale ahaan hadda kan oo kaleeto marka saa u qornay waxa aan ahay arday. Space waa inaa u yeesho. Space-kana hadii lama rabo in aad u fogaato oo aad u weynaado fool xumo noqdo lama rabo. Wixii la'aan inaad dhigtaan lama ogolo. Haddaad saan oo kale u qortid wixii wax qaab daran ay kaa noqonayaan. Marka mar walba qoraal qoraysid waa inaad badhanka space-ka aad riixdaa. Markaad hal space camal waa inuu yeeshaa qoraal walba. Erey walba markaa qorto waa in space u sameyso. Space waa qodobka naga labaad. Qodobka saddexaad waa new paragraph line. Tusaale ahaan qoraal aad soo qortay, line-kan oo kale aan joogaa, waxaan rabnaa inaan aadno line kale, paragraph kalenta. Enter ayaan dhahaynaa. Enter markaad tiraahdo paragraph cusub waaye, line cusub ayuu kugu sameynayaa. Sidoo kaleeto waxaa line kale ama paragraph ku sameyn kartaa manual placement inaad sameyso. Manual placement waxaa laga wadaa inaad mouse-kaaga u kaxayso meesha aad adiga rabto. Mouse-ka ayaad meesha rabto aad u kaxaynaysaa, kadibna double click ayaad ku dhahaysaa. Halkaas ayuuna tagayaa cursor-ka, halkaas ayuu ka bilaabanayaa qoraalkaada. Tusaale hadda oo kaleeto halkaan oo kale mouse-ka waa halkaan uu joogaa. Haddaan laba jeer click click siiyo cursor-kaas halkaa hadda taagan iyo halkaa ka boodboodayo wuxuu imaan doonaa halkaan. Sidaa aragto midaan oo kale marka waxaa la dhahaa manual placement ayaa la dhahaa. Adiga ayaa geesanaya meesha aad rabto inaad qoraalka ka bilowdid. Qodobka kaleeto haddii aan u tagno waa qodobka shanaad, waa select text. Doorashada farta ama qoraalka. Inaad qoraalka doorato oo har saarato ayuu ku saabsan yahay isagana. Dhowr nooc ayaa loo dooran karaa. Qoraalka dhowr nooc har loo saaran karo waxaa ka mid ah inaad left qabatid mouse-kaaga kadibna aad ku jiidid qoraalka. Tusaale ahaan saan oo kaleeto left ayaan qabanayaa mouse-ka kadibna waan wadaa ilaa meesha uu ku dhamaado line-kan ayaan geyn karaa. Saas har waa ku saaran karaa. Waa midda koowaad. Midda labaad haddii aan fiirino, inaad ereyga aad rabtid ama aad doonaysid double click tirahdid
ayadana waxaa waaye tusaale ahaan dugsiga oo kaleeto ayaan rabaa, dugsiga ayaan kor tagayaa. Marka ereyga dugsiga aan rabo inaan har saaro, asaga ayaan kor tagayaa, 2 jeer ayaana click siinayaa. Marka wuu saarmay, sidaas waa lagu saaraa asagana. Qodobkanaga kale haddii aan u tago, inaad qoraalka dhinaciisa bidix intaad tagto aad tiraahdo click, asagana harka wuu ku fuulaa qoraalka. Tusaale ahaan hadda line-kan oo kale inaad har saarto qoraalka kadibna delete tiraahdo. Marka rabto inaad har saarto halkan oo kaleeto haddaad dhinacan bidix aad jag ka siiso, marka qoraalkaas dhan har baa fuulay. Midka ugu dambeeya waxaa waaye har lagu saari karo textiga ama qoraalka inaad control A isla riixdo. Control intaa qabato inaad A na riixdo. Marka qoraalka oo dhan har ayaa fuulay. Sidaasna waa sida ugu fiican ee qoraalka har lagu wada saarto. Qodobkaas haddaan intaas uga gudubno, waxaan aadaynaa qodobkanaga 6aad waa delete text, in qoraalka la tirtiro. Qoraalka marka la tirtirayo asagana waxaa la sameeyaa inaad cursor-kaas geysid meesha aad rabto inaad qoraalka ka tirto. Hadda halkaan uu joogaa. Marka halkaas markuu joogo haddaad backspace ka taabato ama riixdid, qoraalka saas ayuu ku tirtirmayaa. Sidoo kale qoraalka waxaa ku tiri kartaa inaad har saartid kadibna delete tiraahdid adigoo isticmaalaya keyboard-kaaga. Sidaasna qoraalka wuu ku tirmayaa. Sidoo kale wuxuu qoraalku ku tirmayaa asagana markuu sidaa yahay oo kaleeto inaad meeshaan home-ka intaad timaadid meeshaas cut aad taabato. Marka hore laakiin waxaad soo saaranaysaa har baa qoraalka soo saaranaysaa. Qoraalka ayaa har soo saaranaysaa. Qoraalka markuu har saas kugu saaran yahay ayaad cut dhahaysaa. Sidaasna wuu ku jirmaa. Dhowrkaas nooc ayaa qoraalkana lagu tiri karaa inaad cursor-ka geysid meesha aad rabto inaad tirtirtid kadibna backspace-ka aad riixdid. Sidaas qoraalku waa ku tirmaa. Inaad har intaad saartid delete keyboard-ka aad ka tiraahdo wuu ku tirmaa. Inaad maxaa ahayde intaa har saartid home tab-ka hoostiisa cut-da ku taalo aad ayadana aad riixdo, qoraalka wuu ku tirmaa. Casharkanaga caawa intaas ayuu ku saabsan yahay. Inta aynu cashar midkaan oo kale mar kale ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo insha Allah.